subaxnimadii hore ee saaka waxa is hor imaad dhex maray laba beelood oo wada dega deegaanka bariga Boorama balse markii dambe waxa is hor imaad koomani dhex maray ciidanka qaranka gobolka Awdal iyo waliba mid ka mid ah beelaha dega bariga Boorama halkaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo waliba dhaawac waxaana cisbitaalka magaalada Boorama la soo gaarsiiyay khasaarihii halkaasi ka dhashay intaasi kadib waxa xafiiska gobolka Awdal warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro isagoo faahfaahin ka bixiyay khasaarihii ka dhashay iska hor imaadkaasi waxaana ka mid ah hadaladiisii waxa warrugu soo gaaray ciidamada isku urursaday meel magaalada dusheeda ciidamadaas markii hawlgal ciidanku ugu baxay guddiga nabadgelyada iyo ciidankuba ciidankaas wuxuu rasaasay ciidankii dawladda booliiskii bay rasaas la dhaceen laba nin waa dhaawac oo booliisi ina wadintay hawlgalkaas uu socday waxa la soo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dambiilayaasha ahaa iyo saddex bad qaba afartan operation-kaas lagu soo qabtay operation-kaasu kulley dabada wuxuu ku hayaa dhul iyo waxyaabaha caynkaas kadib markii la soo sheegay ciidanka ku baxay khasaare dhacayna intaas u noqday hawlgalkaasuna uu socdaa wixii ka soo kordhana waa lagu daba jiray intii baxsatay dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hase yeeshee barasaabka gobolka Awdal waxa uu ka gaabsaday wax su'aalo in ay warbaahintu ka weydiiyaan dagaalada halkaasi ka dhashay xamse maxamed muuse cawke Real TV Boorama